kulanto wanaagsan saaxiib yaal soo dhawaada waxaan rabaa inaan halkan idinkula wadaaga magacaawis la filayo in saacadaha soo socda ay soo baxdo kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu go'aan qaraar ka soo saaray magacaawista taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan halkan kuula wadaagi doonaa cidda loo magacaabayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sababta keentay xilligan in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la bedelo isla markaana loo magacaabo qof cusub. Xogtaas ayaan rabaa inaan kula wadaago haddii ay tahay markii ugu horreysay ay soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad subscribe dhaa channelka like-na saartid siina share gareysid saaxiibo badan u gaaro aad iyo aad u mahadsan tahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo safar booqasho ah ku jooga dalka Masar ayaa lagu soo waramayaa in uu soo diray fariin culus oo ku socotay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kadib markii shalay dagaal culus oo al-shabaab ay kula wareegeen qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Moqori uu ka dhacay halkaas. Madaxweynaha ayaa dagaalkaasi ka xumaaday isla markaana wuxuu fariin u soo diray taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Jarnaal Odawa Yuusuf Raage kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ugu baaqay inuu xil ka qaado isla markaana oo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed u magacaabayo gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan haddana ah u qaabilsanaa madaxweynaha arrimaha macawisleyda. goor sii horeysay Cali Jeyti ayaa maanta waxa uu ka degay gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Moqori halkaas oo uu kula kulmay ciidamada beesha xawaadle ee ku sugan furmaha hore dagaal gaar ahaan degmada Moqori oo shalay halkaas dagaal culus kula galay kooxda al-shabaab oo halkaas weerar gaadma oo qaraxyo ku bilaawday ku soo qaaday. Cali Jeyti ayaa halkaas waxa uu u tagay bogaadinta iyo dhiirigelinta ciidamada macawisleyda ee beesha xawaadle kadib markii ay dowladda federaalk Soomaaliya garabkooda ka baxday isla markaana looga soo baxay furmihii hore ee dagaalka. beesha xawaadle ayaa hadda u muuqata mid kali ku soo hartay dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab waxaana hadda Cali Jeyti halkaas uu u tagay in uu ciidanka beesha xawaadle ee macawisleyda uu u sameeyo dhiirigelin iyo moraal cusub oo ay dagaalka al-shabaab dib ugu laabtaan iyo si ay si laba jabaaraanba dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab. sidoo kale Cali Jeyti halkaas tagistiisa ayaa lagu soo waramayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku amray inuu tago furmaha hore dagaalka bacdama loo wado in loo magacaabo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Cali Jeyti hadii uu noqdo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa la rumaysan yahay ama dadka badi isla dhaxmarayaan in uu wax badan ka bedeli karo sababtoo Cali Jeyti waxa lagu xasuustaa doorkii hogaamineed ee uu ka qaatay dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab kadib markii beesha xawaadle ay sabab u ahayd inuu bilaawdo gulufka ka dhanka kooxda al-shabaab oo hadda maraya meel gabagaba ah. balse dhanka kooxda al-shabaab ay hadda u muuqata kuwa soo rogaal celiyay isla markaana soo xoogeystay iyadoo maalmihii la soo dhaafay dagaalyahanadii al-shabaab ka joogay qeybaha ka tirsan gobolada Shabeellaha Hoose iyo Jilib isugu keentay qeybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. al-shabaab ay hadda u muuqato in ay soo rogaal celinayso iyadoona doonayso in ay dib u qabsato mar kale deegaanadii degmooyinka laga saaray sanadihii la soo dhaafay. al-shabaab ayaa hadda u muuqata kuwa sii xoogeysanaya iyagoo maalmihii la soo dhaafay badinayay ama xoojinayay weerarada gaadmada ay ku qaadaan fariisimada ciidamada ay ku leeyihiin qeybo ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. shalay ayay ahayd markii dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab ay weerar gaadmaha ku soo qaadeen halkaas oo al-shabaab gacan ku haynta muddo saacadaha kula wareegeen degmada Moqori ee gobolka Hiiraan balse ciidamada beesha xawaadle oo halkaasay furin adag ay u ahayd ayaa al-shabaab ka diiday in halkaas ay ku sii nagaadaan ama ay sii heestaan waxaana saacado kadib halkaasay gacan ku haynteeda dib u soo ceshaday ciidamada macawisleyda beesha xawaadle oo hadda halkaasi ku sugan. guud ahaan baa gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo ka dhanaa kooxda al-shabaab waxaana la rajeynayaa in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loo magacaabo gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan haddana ah oo qaabilsanaa arrimaha macawisleyda Cali Jeyti Cismaan. Cali Jeyti Cismaan hadda wuxuu ku sugan yahay qeybo ka tirsan gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Moqori halkaas oo uu joogo dardalgelinta iyo dhiirigelinta dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab. Cali Jeyti hadii uu noqdo ama loo dhiibo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa macquul ah in al-shabaab ay ka sii hoos maraan hadda halka ay joogaan. waxaan ka codsanayaa haddii aad halkan ila soo gaartay inaad subscribe idhaahdo channelka like ii saartid aragtidaadana qaybta hoose commentiga ay igula wadaagtid. Cali Jeyti waxaa urjeynaysid sidoo kale qaybta commentiga igu reeb aad iyo aad u mahadsantahay.